habluhu waxay yidhahdeen maxay diintu ka qabtaa modelinka xayeysiinta dharka haddii aad xijaaban tahay ملا سعيد بطايق dee anugu dhulkii aan ka imi horta modeling lagama aqoonin culammadii wax noo dhigi jirtayna modeling kama aqoonin laakiin haddaan de si guud u eego asliyan gabadh muslimadii de intay dad is hortaagto isjajabiso dadka modelinka sameeya dhowr wax bay u sameeyaan waa la soomiyaa soonaan ilaahay loogu dhowaanaynin waxaa kaloo la tijaabiyaa gabadh waliba jidhka halkay u qurux badan tahay baa marada looga dhejiyaa ama loo dalooliyaa si ay u muujin karto waxaa la baraa socod gaaroo loo socdaanka bini aadamku ku socdo ahayn idan waa waxyaabo tiro badan oo ah in qofkan ishiisa la soo jeediyo marka gabadh muslimadii intay ismarmarooriso halkaa istaagto inay diini ogolaanayso u malayn maayo haddii ay tahay marada lafteedo dee xijaab iska weyn oo intay qaadatay halkaa marayso dee taasuu qabo waa lagu arkayaa baan u malaynaya anigu intaan ka garanaya waa intaa laakiin cid bal garanaysa ha la weydiiyo baarak allah waxay ku xidhan tahay dee meesha modelinka laga samaynaya hadday qol dumaroo qudha tahay ma see loo samaynayaa waa masale wax kale u baahan anigu ma aqaano kolley asalaamu calaykum